Jamhuuriyadda Jabuuti ayaa waxaa maanta lagu soo gabagabeeyey kulan looga hadlayay arrimaha musuqmaasuqa iyo wax isdabamarsiinta. Kulankan oo ay soo qaban qaabisay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan dhinaca horumarka ee marka magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaan UNDP ayaa waxaa ka qayb qaadanayay qaybaha kala duwan ee mas-uuliyiinta waddankani Jamhuuriyadda Jabuuti waxaana kulankaasi gabagabadiisa maantay ka soo baxay qodobo dhowr ah iyada oo looga doodayay arrimaha wax ka qabashada wax isdhaafsiga qaldan ee aan sharciga ahayn. Kulankan ayaa waxaa ka qayb galayay madax kala duwan oo iyana ka socota hay-adaha kala duwan ee dowladda iyaga oo goobtaasina ku dhagaysanayay amaba ra'yigooda ka dhiibanayay qaybaha kala duwan ee arrimaha horumarka waddanka. Wasiirka maaliyadda ee waddankani Jamhuuriyadda Jabuuti Ilyas Muuse Dawaale oo aan wax ka weydiino qodobada kulankaasi ka soo baxay ayaa waxa uu sheegay in kulankani uu ahaa mid ahmiyad gaar leh. Waxaa sidoo kale uu sheegay wasiirku in kulankii ay maanta yeesheen golaha wasiirada ee waddankani Jamhuuriyadda Jabuuti lagu marsiiyey amaba lagaga dooday qaraar ku aadan arrintaasi iyadoo laga soo saaray dhagalay ku aadan arrintaasi oo ah xeer wax ka qabanaya arrimahaasi. Waxaa sidoo kale wasiirku sheegay in sharci tallaabo looga qaadayo dadka iyagu wax isdabamarsiiya haddii ay noqon lahaayeen mas-uuliyiinta dowladda iyo dhinaca ganacsatada intaba. sidaad ogtihiin baa arrimahani musuqmaasuqa amboolise xoolaha dawladeed xoolaha dadka isdhaafsiga isdhaafinta waxaan musuqmaasuqa lagu waxaynayo waa wax mushkilad u taalla adduunyada waa mushkilad afrikada u taalla waa mushkilad iyaduna sideedaba u taalla jamhuuriyadda Jabuuti xilligaasi sidaad ogtihiin ba mashruucyo badan oo horumarinta qaabilsan oo horumarinta dhaqaale qaabilsan oo madaxweynuhu horseedayo ayaan sanadahan dambe ku dhan la soo waday iyadoo haddana xeerar badan la soo dhigay si loola dagaaltamo waxyaabahaas falashaas oo kale waxaan sanadii malaha kuma filna wali calaamadood kulliba way jiraan nina xantii ma mooga madaxweynuhu xilligaas waxa uu gartay si adag hadeeto ina arrintaasi loo dabagalo oo loo ogaado oo wax Mikael Cabdirashiid Bare, telefishinka qaranka Soomaaliyeed, Jabuuti.